ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxay fuliyeen howlgallo ballaaran oo ka dhana al-shabaab. Howlgalka waxa uu hadda xoogiisa ka soconaya dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo sidoo kalena la ogyahay in deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudugna ay ciidanka ku sii socdaan. Wararkii ugu dambeeyay howlgallada soconaya iyo sidoo kale isbedelada ku yimid howlgalka ayaan rabaa inaan halkan kula wadaago ee soo dhawow. Fadlan daawada muuqaalka share garay, aragtidaadana qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanid. sidaan la wada soconno wixii ka dambeeyay canaantii madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsaneed ciidankii dib uga soo laabtay deegaano ka tirsan gobolka Mudug iyo sidoo kale habacsanaantii ku timid howlgalka ka dhanka argagixisada al-shabaab iyo weliba hadalhayntii ka dhalatay arrintan ee baraha bulshada qabsatay. Waxay taasi keentay in isbedel degdeg ah lagu sameeyo dhammaan howlgalladii dalka ka socday, waxaana sidoo kale lagu soo kordhiyey deegaano kale oo horay aan howlgal uga socon. ciidanka dowladda federaalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga waxay maanta qaadeen howlgal ballaaran oo weliba ka dhacay dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana howlgalkaasi lagu baacsanayay argagixisada al-shabaab. Deegaano dhowr ah ayay ciidamada howlgalkan ka fuliyeen, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda Soomaaliya lagu xaqiijiyay in 30 ka mid ah al-shabaab lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah. waxaana wararku ay sheegayaan in howlgalkan xooggiisa oo ka dhacay deegaanada Baghdad iyo Baldooska oo hoos taga degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay xubnahan kadib markii ciidanka dowladda ay ka war heleen goob al-shabaab isku urursanayeen oo ay doonayeen inay ka soo qaadaan weerar culus. weerarkaas oo ku soo wajahnaa goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. inkastoo bartilmaameedka ay ku socdeen aan la xaqiijin, haddana waxaa la sheegay in dagaal weyn ay soo abaabulayso kooxdan. dowladdu waxa ay sheegtay in 24 ka mid ah al-shabaab lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Baldooska, halka 15 kalena lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Baghdad. 15kan waxay ku dhinteen duqeymo ay fuliyeen diyaaradihii caawinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. sidoo kale ciidamada waxa ay ku faafeen deegaano kale oo dhowr ah, gaar ahaan deegaanada isku xira dhanka Afgoye ilaa iyo Balcad, halkaas oo la sheegay in argagixisada al-shabaab lagula dagaalamay meelo badan ay ku sugnaayeen ama ay ku dhuumaalaysanayeen nacagta la mariyay. sidoo kale howlgal kale oo xoog badan ayaa ka soconaya xeebta dheer ee isku xirta Muqdisho ilaa iyo magaalada Markacadey ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana halkaas howlgallo ka fulinaya ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah. ciidamada xoogga dalka waxa ay burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen dhowr meel oo xeebta kulaala. sidoo kalena waxaa la doonayaa in si nadiif ah la isugu furo Muqdisho ilaa iyo marka dhanka dhulka, maadaama in dadku ay ku safraan dhulka ay aad u adkaatay oo inta badan waayadan la adeegsanayay isticmaalka dhanka xeebta. sida muuqanaysa dowladda federaalka istiraatiijiyadda howlgalka waxay ku soo dartay dhanka gobolka Shabeellaha Hoose oo meelo badan horeyba loogula dagaalamay al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena uu dardar ku socdo howlgalka koonfurta gobolka Mudug oo lagu baacsanayo kooxdan. inkastoo howlgallada ay socdaan, haddana weli qobrada dhanka amniga waxa ay leeyihiin waxa ka maqan dardar kale oo xoogan oo ah inaan lagu ekaan Shabeellaha Hoose iyo Muduge, dhammaan gobolada dalka meel walba oo ay al-shabaab ka joogaan ilaa Jubbaland in cagta la mariyo oo dagaalka uu bilowdo, taasoo la aaminsan yahay in awoodda al-shabaab lagu weeqi karo. wixii ka dambeeyay weerarkii al-shabaab ay ku soo qaadeen hotelkii kaabiga ku haya Villa Soomaaliya ee SYL, isbedelo degdeg ah ayaa lagu sameeyay saraakiisha ammaanka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa caasimadda iyo weliba sidoo kale kuwii hogaaminayay furimaha hore ee dagaalka. inta badan waa la bedelay saraakiishii hogaaminaysay dagaalada dhanka gobolka Mudug, gaar ahaan koonfurta, kadib markii ciidanku deegaano badan ay soo baneeyeen. saraakiil kale oo firfircoon ayaa dhanka Shabeellaha Hoose la geeyey, kuwaasoo iyagana howlgallada hadda wada. waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan. al-shabaabna bishan waxa ay geystaan weeraradooda ugu badan iyaga oo bartilmaameedsada meel walba oo ay u arkaan in la bartilmaameedsan karo, yacni uma kala soocno shacab iyo dowlad. waa ay bartilmaameedsadaan xarumaha dowladda, goobaha shacabka ku sugan yahay sida maqaayadaha iyo hoteelada, meelaha dadku isugu yimaado, iyo meel walba oo ay u arkaan in ay saameyn ku yeelan karto dadka shacabka Soomaaliyeed. haddaba daawada, aragtidaadu maxay kula tahay? ma isleedahay bishan inta ay socoto ama bisha Ramadaan inta ay socoto ciidanka dowladdu waxay gaari doonaan guulo waaweyn oo al-shabaab waxa laga saari doonaa meelo badan, mise howlgalkan waxa uu la mid yahay howlgalladii hore ee la midka ahaa ee dalka ay ka fulisay dowladda federaalka Soomaaliya kadib dib u doorashadii Xasan Sheekh? aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb, muuqaalka share garay mahadsanid.